fiid wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada barnaamijka tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub dabcan marka aad maqasho jiilka cusub waxa mar walba kugu soo dhacaya dhalinyarada imika ama dhalinyarada waqtigan joogta barnaamijkan ujeedadiisuna waxa ay tahay in fursad lagu siiyo dhalinyarada hibada leh balse aan fursad u helin madal ay ku soo bandhigaan hibadooda barnaamijkana waxa suurta galiyay wadnaha FM oo aad ka dhageysan kartaan 96.2 dabcan barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa sidaan idin sheegay dhalinyarada imika jirta haddii aan dib xasuusaheena u celina qaarkeen suurtagaleed inay waagaas noolaayeen qaar badan oo aniga ila midana ku maqaalo tahay oo aan filayo dhalinyaranimada inaan weli isxijinayno barnaamijkii tartanka heesaha hirgalay ee jiri jiray dunida casriga imika ku noolnahayna waxa ka jira wadan walba barnaamijyo u khaas ah ama barnaamijyo guud oo sida X Factor Americans Got Talent iyo barnaamijyo lamid ah taasina waxay mar walba fursad u siiyaan bulshadooda madal ay ku soo bandhigaan hibada ku jirta taamid lamid ah ayaa barnaamijkan heesaha waliba dhalinyarada si khaas ah fursad u siinaya in ay hibadooda ku soo bandhigaan xagga fanka waayahan dambana waxaad moodaa bulshada in markii barnaamijku bilaabanayay ay islahaayeen waxaan sii jiri doonin inay ama qaar badan madadaalo iyo qosol u arkayeen balse haatan goobta uu soo gaaray ay ka duwan tahay intaas soona saaray dhalinyaro badan oo hadduuna barnaamijkan jiri lahayn fursadan aan heli lahayn waxaan rajaynayaa markiisii koowaad ee barnaamijkan sanadkan markuu uu dhammaado sanadka badan tirada hadda ka soo qayb gashay tiro ka sii badan inay ka soo qayb gali doonto barnaamijkanna uu wado fur u noqon doono barnaamijyo badan oo dalka gudihiisa ka hana qaada fursadna siiya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan filaynaa dal iyo dibadba inuu isgaaro marka laga soo tago fursadan waxa ku tartamaya barnaamijka qaybtiisa semifinalka 12 qof oo ugu dambeeyay oo soo gudbay barnaamijka waxaana barnaamijka garsoorayaalka 40 ruux ay hor fadhidaan magacyashooda idin sheegi doono dabcan markii hore 3 buu ahayd garsoorayaasha balse waxa hadda imika afareeyay waxa weey tartanka oo xiisiisi leh qaybihii ugu dambeeyayna soo galay 4 garsoor hadda idin kala baro dabcan waa Shimali Ahmed Shimali waxa fadhiya waa Cabdirasaaq Ahmed Geedi aakhiro Daawud Yusuf Ahmed Daawud Xanfar iyo Yusuf Maxamed Maxamuud Yusuf Haybaro afartuba waa garsoorayaal waxa ayna u kala garsoori doonaan tartamayaasha qaybta semifinalka u soo gudubtay haddaan imikana idin baro 12 qof ee qaybta ugu dambeysay soo gashay tartanka oo aan hal ugu yeeri doono aan filaya dhamaantoon inay soo garab istaagaan si ay dadku idin bartaan waxaan u yeerayaa Axmed Cabdulle Xasan محمد محمود محمد نور عبد الله حسين محمد عبد القادر محمد أصلي أبوكر أحمد نستاحو ضيح عبدي عبد الولي إبراهيم محمد محي الدين محمد توحو عبد القادر محي الدين كلمية فردوسة محمد حسن سهرة أحمد جمعالة يو دنبين خضر محمد مهدي لبيه طبعا كان ترتمى يقرب تاغن وحا اي كسو قدبين كلما كلا دوان مربا قيبيه سلاها طبعا قار بدن oo facebookyada fiidiyoyaasha ku daawateen baa laga yaabaa inay garab taagan yihiin qaar badan oo tartan ka soo qayb galay qaarkeen madadaalo badan u noqotay way ka dhacday balse 12 kan iyo waxay ka soo dhaxbaxeen tartamayaal badan qaarkoodna nasiibka iyo fursaddu u saamaxday inay tartanka soo gaaraan balse 12 kooda dhammaan hal qof oo kamid ah baa noqon doona guuleystaha 12 kalena iyagoo dadaalay ilaa ay heer semifinal soo gaarayay balse guushu ma wada qaad 12 qof hal kamid ah baa guuleysta noqon doona 6 baa had waa gaari doona had semifinal kan ku jirnaa dabcan 12 kan caawa 6 kamid ayaa waxay u gudbi doontaa finalka kadib ayaa hadana qof guuleysta noqon doona insha Allah marka waxaan rajaynaynaa 12 kan nasiibkooda
lixda u gudbi doonta inaan caawa markhaati ka wada noqono kadibna lixda kalena insha Allah sidan iyo si kasii ballaaran finalka inaan iyadana barnaamijkan inta kasii weyn isugu nimaano aan qofka ku guuleystana uu noqon doono fanaan ku soo biiri doono fanaaniinta Soomaaliyeed dabcan 12 kalena ma ahan inay hamigooda ama rajadooda hadayna guuleysanin walaalkooda guuleystay ama walaashooda guuleysatay taageeri doonaan iyaduna hibadooda waxay heli doonaan fursado badan oo ay ku sii bandhigaan waxaan leeyahay nasiib wacan dhamaantii tartamayaasha intaana barnaamijku u gudbin waxaan ku furi doonaa hees waana mahadsantihiin waxaan leeyahay nasiib wacan mar labaad kuraastiin igu laabta waxaan iminkana barnaamijka ku furanaynaa hees uu inoo qaadi doono fanaan da'yar waa Jamaal Onkod kadibna barnaamijka ayaan si toos u gudagali doonaa waana mahadsantihiin
وفتيو كاغهير شوايا سيدو كاغا ورقبا واحتر لوغو يشا سيدو كاغا ورقبا واحتر لوغو يشا heshiis male waxaan ya badayo qofkii waaya aragay walaalnimo mabaayo waaya arag qofkii ahi walaalnimo mabaayo heshiis male aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaan Jamaal Onkad dabcan waxaan soo gaarnay qaybtii aan wada sugaynay qaybtii aan isoogu nimid oo ah qaybtii ay tartamayeen 12 ruux ee ugu dambeysay ee u soo gudubtay semifinalka 12 waxaan insha Allah laba ayaan ugu yeeri doonaa labadan mar walba qof baa soo hormari doona iminkana waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabduqaadir Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Maxamed balse waxaan marka hore u yeerayaa محمد عبد القادر محمد إنه نقض قف كوباد حاول نصيب كيسة تجابية فضلا إلى السودوية محمد عبد القادر محمد بايدين سلام دمانتين
garaadkay ka gaabsan waaye adna garashadaadii ii garaabi weyde dhibta aan galaayada i gargaari mayside cudurka habeenkii dhaxanta iyo goora awada godoome dhibta aan galaayana i gargaari mayside cudurkan habeenkii dhaxanta iyo goora awada godoome aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay tartame maxamed cabduqaadir maxamed iminkana waxaa la tartamayaan u yeerayaa maxamed maxamuud maxamed ila soo dhaweeya isagana
bay mirtee quraaniyo daga kuduucisla sumursane ogiyo jacayl waa maxay ogiyo jacayl waa maxay waxaa noo bilowday tartamayaashii oo laba u tartamayay laba maxamed waa mahadsan yihiin labadooduna wixii ay ka helaan waxaan ka ogaan doonaa insha Allah inta uu socdo guddiguna uu ka gaarayo go'aanka haddana waxaan u yeerayaa laba tartamo oo kale marka ay laba u tartamaan ay dhameystaan dhamaantood ayaa haddana labadii ugu horeysay laba maxamed loo yeeri doonaa qof walbana la ogeysiin doonaa halka qof ee guuleystay ku noqon doono saas ayaanu ku ogaan doonaa lixda qof ee u gudbi doonta finalka iminkana waxaan u yeerayaa waa Cabdiqaadir Muxiidiin Kulmiye iyo waxa la tartami doona Khadar Maxamed Mahdi waxaana hormari doona Khadar Maxamed Mahdi ila soo dhaweeyay tartama Khadar Maxamed Mahdi If you're
dhagaxyo buuraha culus wabiyada cartamayo ifyada bad dhagaxyo buuraha culus وحجرا قل يا نبي عيري من حولي عمري الدنيا وحجرا قل يا نبي عيري من حولي وعيني عنك وحيري موت يا كذا عقل وعيني عنك وحيري وعلي لقلبي لك علمك وطن عاشق برايي وعلي لك كل الخطر أشبه برايي aad ayuu mahadsan yahay tartama Khadar Maxamed Mahdi waxaan filayaa daqiiqadba daqiiqad ka dambaysa inay xiisuhu sii badanayo tartamada ka dambeeyana uu sii farxad gelinayo ka soo qaybgalayaasha iminkana waxaan u yeerayaa Cabdiqaadir Muxiidiin Kulmiye
isaguna inuu goobta la yimaado wacdarihiisa oona la tartami doono tartama khadar sidaan idiin sheegayna laba ayaa loo tartami doonaa hal mar ayaana wada ogaan doonaa insha Allah 6 gadaal u soo gudubta Hi,
Kalam kalam, kalam kalam, kalam kalam, dahil kuye, yirtayna kuye, dal kaygalu, asuje saniuye. Kalam kalam, kalam kalam, kalam kalam, kalam kalam, dahil kuye, yirtayna kuye, dal kaygalu, asuje saniuye, asuje saniuye. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartama cabduqaadir muxiidiin kulmiye waxaan filayaa iminka dhextaalka ama inta idinka soo dhexgalayaba inay idin qasayso aad rabtaan inay isku xigaan heesuhu balse nasiib darro taasi ma dhici doonto mar walba waad ila kulmi doontaan aniguna waxay tartama aan lala tartamaynin qaybta ugu dambaysa ciyaaraha soo geli doona balse intii hore waxaan aragnay 4 rag oo tartamayay iminkana waxa uu gudbaynaa qaybta dumarka waxaana tartami doona asli abukar axmed iyo saara axmed jimcaale waxaana u yeerayaa asli abukar axmed iga raalli noqda halkaas waxaan hormarin doonaa saara axmed jimcaale kadibna way ku xigi doontaa asli ila soo dhaweeya saara axmed jimcaale
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay tartama Sahra Axmed waxaana la tartami doontaan u yeerayaa iminka Asli Abuukar Axmed ila soo dhaweeya
talayga qaloocane qalbiga kama hooyo jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi qalbiga kuu rabay haddaad isqaba weyde qalbiga kuu rabay haddaad isqaba weyde qal hadiima wayey hadduu qasulku been yahay hadaad qaraar gaadhe hadaad qaraar gaadhe qal hadiima wayey hadduu qasulku been yahay hadaad qaraar gaadhe hadaad qaraar gaadhe kala qoshayse inaa qariga tuurte waa qasaaru halise kala qoshayse inaa qariga tuurte waa qasaaru halise talayga qaloocane qalbiga kama hooyo jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi qalbiga kama hooyo jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi jiriracay maqaadi aad iyo aad ayay u mahadsan tahay asli abuukar axmed intaasna waxaan uga gudbaynaa lixdii qofood oo ugu horeysay iminkana waxaan u gudbaynaa lixdii dambe dabcan waxay ila tahay guddiga garsoorka inay shaqadu ku adkaan doonto codadka qaar in la kala doortaahi way adag tahay balse iyaga ayaanu dhaafi doonaa waxaan iminkana u yeerayaa tartamayaasha nooxiga waxay noqon doonaa nuur cabdulaahi xuseen iyo axmed cabdulle xasan axmed cabdulle xasan waxaana hormarayaan u yeeri doonaa nuur cabdulaahi xuseen ila soo dhaweeya tartamaa nuur
calmashada kalgacal cidka lagu shareey inta laysu baaq codna lagu heshiiyey gabaryahay casrigan calmashada kalgacal cidka lagu shareey inta laysu baaq codna lagu heshiiyey اليدا عرض وحاد كسور بابا السقالا عدت كهربا اليدا عرض وحاد كسور بابا السقالا عدت كهربا عيان عاشق أذى عيان عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى علنك وسيدي عنا إلى وذا عاشق أذى عيان عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى علنك وسيدي عنا إلى وذا calmashada kalgacal qof cimiladu caadiga dhamuu ku cawaysanaa gabaryahay casrigan calmashada kalgacal qof cimiladu caadiga dhamuu ku cawaysanaa جواب وعلى السمو كلنا علا من عيدا وذا من عيدا وذا عيدك ما بحير عريسي جواب وعلى السمو كلنا علا عيدا وذا عيدا وذا عيدك ما بحير عيان عاشق أذى عيان عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى علنك وسيدي عنا إلى وذا عيان عاشق أذى عيان عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى عاشق أذى علنك وسيدي عنا إلى وذا waxaa la tartami doonaa tartamaa nuur cabdulaahi xuseen axmed cabdulle xasan ila soo dhaweeya axmed
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسو قيبقلياش وسلاميا أنيقا قدقا iyo tartamayaasha dhammaan waxaa isla garanay inaan bilaa music ku heeso waxaana codsan lahaa wax yar in maxaa la dhahaa musicianka aan siiyo inta heesteeda ku jirto heestan ku tartamaya waxaa qaaday Saalax Qaasim waa ka raali gelinaa daa'irada qaar qaldo heestan waxaa la yiraahdaa alla barasho wacana aniguba baryaha qaar waa tambadiya webi buraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray wasabixise cashaqan biyon badankayga kaba jaray aniga u buseele wasabixise cashaqan biyon badankayga kaba jaray aniga u buseele taanu beer cadaade taanu beer cadaade buudayow naftayd iyadayga baydhay iyadayga baydhay taanu beer cadaade taanu beer cadaade buudayow naftayd iyadayga baydhay iyadayga baydhay baridaduna waasadee ruux bukaanka kugu nacay adoo baanka tegay sama kuma banaane baridaduna waasadee ruux bukaanka kugu nacay adoo baanka tegay sama kuma banaane alla barasho wacana alla barasho wacana biiwa adduunyay maxad laba boglaysaa howlahaagu badanaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartama Axmed Cabdulle Xasan dabcan sida wada arkayno Axmed Cabdulle Xasan waa dadka baahiyaha gaarka qaba balse taas kama aysan dhigin inuu ka haro bulshada ama dhalinyarada jiilka isaga la midka ah barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa qof walba oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah inay hibadooda soo bandhigaan hibaduna ma ahan inay dad gooniyo ku jirta qayb walba oo bulshada waa laga heli karaa waxaan ku dhiirigelinayaa aan aadna ugu mahadcelinayaa kalsoonida buuxda ugu qaba nafsadiisa tartama Axmed Cabdulle Xasan hibadiisana uu doortay inuu bulshada Soomaaliyeed la wadaago waxaana leenahay nasiib wacan wixii aad goobta kula kulantay ayaad heli doontaa insha Allah waxaan u gudbayaa qaybaha xiga waxaana imika tartami doona Cabdiwali Ibrahim Maxamed iyo Muxidiin Maxamed Tooxow waxaana hormari doonaan u yeerayaa Muxidiin Maxamed Tooxow ila soo dhaweeya tartama Tooxow
dhaqtaraadii gudayga dhayayso adi dhiirigelise dhaqwixii horeen qabay waxaad tahay dhaqtaraadii gudayga dhayayso adi dhiirigelise nasiib liyo mid hodale hataa dhigo ilaahay dhantaalkiyo uma tusa dhibaato ayan dhalad nasiib liyo mid hodale hataa dhigo tartama muxidiin maxamed tooxow aad ayuu mahadsan yahay dabcan tartamayaashii kale waxa uu dheeraa in ay isagu xaaskiisu dhiirigelinaysay garab taagnayd
waxaan leenahay nasiib wacan tartama tooxow waxaana la tartami doonaa cabdiweli ibraahim maxamed ila soo dhaweeya tartama cabdiweli aad iyo aad ayuu mahadsan yahay tartama cabdiweli ibraahim maxamed
tartanka waxaan soo gaarnay labadii tartamay ugu dambeysay waxaan idinku wargelinayaa ama idinku codsanayaa inta uu tartanku socdo inaan mar dambe stage-ka la soo fuulin waana mahadsantihiin intii hore u soo fuushana waxaan leenahay mar labaad insha Allah ayaan la soo noqonin kuwa cusubna waxaan ku codsanaynaa qofka heesaya mooyaane qof kale inuu mar dambe stage-ka soo fuulin labada qof oo ugu dambeysa inta aanan microphone-ka siinin guddiga sidaan idin sheegay guddiga shaqo adag baa u taala oo intii tartan aan caawi markhaatiga ka ahayn in ay kala doortaan nasiibkuna 6 qof ee u saamaxay ee u gudbi doonta finalka ay doortaan ayaa iyagana looga fadhiyaa waxaan u yeerayaa labada tartamay ugu dambeysa oo ah Nasteexa Dayax Cabdi iyo Fardowsa Maxamed Xasan waxaan u horyeerayaa Nasteexa Dayax Cabdi ila soo dhaweeya Nasteexa oo ah labada tartamay ugu dambeysa inta aanan galin gabagabada barnaamijka Nasteexa soo dhawow Ayga inanki dalka aygu wahabeen
waxaan rabaa inaan baljaska bixiyo istaad aakhiro muusigada yar aan qalday inay gabadhana macnaha fanaanada cusub iyadana iga raali naqato laakiin waa laga qabtay macalinkeyga iga qabtay iyo macalin shimaali labada kale anaa macalin laakiin labadaana macalin yani aad iyo aad u mahadsan yahay CD cali winki aad ayay u mahadsan tahay nasteexo waxaan tartamihii ugu dambeeyey barnaamijka 12 qofood ee caawa ku tartamayeen ayaa iminkana u yeerayaa waa Fardowsa Maxamed Xasan Fardowsa waa qofka ugu dambeeyey 12 qofood saa idin sheegay kadibna waxaan mikrofoonka iyo idinka isaga kambi dhaxbixi doona gudiga iyaguna ku soo celin doona fursadooda dadkii labada u tartamayay iminkana ila soo dhaweeyay Fardowsa Maxamed Xasan oo qofkii ugu dambeeyay ee barnaamijka caawa qaybtiisa finalka u tartamaya Fardowsa soo dhaweey
fardowsa aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waxayna ahayd sidaan idiin sheegay tartamihii ugu dambeeyey ee ku tartamaya barnaamijka qaybtiisa semifinalka inta aanan u gudbin natiijada guddigana aanan mikrafoonka siinin dibna aan idinkugu yeerin tartamayaasha labo waxaan idin kala baxayaa idinka iyo fanaan CD oo dhextaal inoo noqon doona inta natiijada la diyaarinayo CD على ويكي صاحب نوهس قال نوهس وهب كان لقاك وهب Come on,
horta aad baa u mahadsantihiin shacabka ka soo qayb gala xafladda marba hadduu heesay macalinkaygii ana maxaa i dhigay dhibi baxay la moodiyey inaan heesaan doonayaa iskaalka waxay ii tagtaa waa mahadsan yihiin fanaan Sidi Caliwinka iyo fanaan Daawud Xanfar waxaan filayaa awal waxaan isla balaadna ka daba hees tartamayaasha in heesteedii laga maarmay aan dib u dhigan doono iyo kulanka xiga sidaan idin sheegay caawa waxa tartamayay 12 tartama oo adinku goobjoogayaal ka ahaydeen 6 kamid ayaana u gudbi doonta finalka oo ah meeshii ugu dambeysay lagu ogaan doono qofku guuleysan doona balse 12 caawa tartantay 6 kamida waxay aadi doonaan guryahooda 6 kamidana waxay u tartami doonaan
qofkii noqon lahaa qofka ugu dambeeya ee ku guuleysta barnaamijka haddaba sidaan idiin sheegay 12 ma wada guuleysan doonaan taasna macnaheedu ma ahan qofkii aanan caawa nasiib u yeelan inuu gudbo qaybta ugu dambaysa in uu isaguna guul daraystay balse waa uu dadaalay dadaalkiisuna waxa uu soo gaarsiiyay heerkii semifinalka ahayd waxaan iminkana sidaan idiin sheegay shaqada ugu culus ee u taala guddiga garsoorka tartamayaasha waxaan u yeeri doonaa labadii qof ee ugu horeysay ee heestay kadibna panelka ayaan siin doonaa fursadda guddiga waxaan u yeeri doonaa waa maxamed cabdiqaadir iyo maxamuud laba maxamed baa tartamay labada maxamedkii guriga aadi doona iyo maxamedka aan dib u daawan doona iyo finalka waxaan noo kala sheegi doona guddiga ayaana ku bilaabayaa soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta guud ahaan 12 isugu soo baxay semifinalka ama 12koodu dee 12 waa 12 sare weeyaan mar hadday soo gaadhaan semifinalka wareegan haddii la soo gaadho inta wareegan soo gaadhayba waxa weeyaan in lagu xisaabtamayo oo ay bulshada Soomaaliyeed ku xisaabtamayso oo ay dhageystayaasha xiiseeyo fanku ku xisaabtamayaan weeyaan 12koodu laakiin dee gari laba nin kama wada qosliso haddana sidaa ay tahay 6 baa u gudbi doona finalka waa hagaag kooxdan koowaad maxamed wuxuu ku guuleystay 255 dhibcood maxamed cabdulqaadir maxamedna 270 dhibcood isaga ayaana u gudbay wareega finalka way ya dabcan laba maxamed hal mar bay stage ka wada degeen dadku iyagoo isweydiinay keebaa guuleystay waxaa nasiib u yeeshay inuu u gudbo waa maxamed cabdiqaadir maxamuudna waxaan leenahay waa dadaashay barnaamijkana waxa uu leeyahay qaybo badan oo xigi doona sanadkan waa sanadkii koobaad dabcan sanadkii koobaadna mar walba waxay la timaadaa tijaabadeeda cusub waxaan rajaynaynaa barnaamijyada dambe iyo kaalintaada fanka ee aad doorkaaga ku soo bandhigtay barnaamijkan inaad sii wadi doonto adiguna maada guul daraysan aadna guulaysta kale ayaa tahay waxaan ku leenahay hambalyo waxaan leeyahay maxamed cabdiqaadirna hambalyo waxaan dib u arki doonaa maxamed cabdiqaadir kulankan xiga maxamed hal taagnaada halkaa geeska haye hadhow baa loo yeeri doonaa guulaystayaasha hadda waxaan u yeerayaa labada xigta waa iyaguna waa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iyo khadar maxamed mahdi waa hagaag khadar maxamed waa kooxdii labaad weeye kooxdani khadar maxamed mahdi 250 dhibcood ayuu sitaa cabdulqaadir muxiidiin kulmiye 350 dhibcood ayuu ugu gudbay finalka ayuu ugu gudbay 350 dhibcood waa maasan yihiin tartamayaashaas iyaguna labadii qofood tartamay waa cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iyo khadar maxamed mahdi waxaa finalka u gudbay waa khadar maxamed mahdi waxa u gudbay cabdiqaadir muxiidiin kulmiye iga raali noqda khalad ayaan galay waxaan leenahay khadarna waa dadaashay adiguna mid lamida sida tartamiyo hore kale si fiican salaamade markii la kala badiyo waa la isla salaamaa waxaan iminkana gelaynaa qaybtii gabdhaha waxaan u yeerayaa waa asli abuukar axmed iyo sahro axmed jimcaale iyaguna waxaa go'aamin doonaa qofkii u gudbaya finalka guddiga garsoorka tartamayaasha أسلي
abuukar axmed waxay ku guulaysatay ama ay heshay 250 dhibcood. sahra axmed jimcaale iyadana waxay heshay 340. waxaa finalka u gudbay sahra axmed jimcaale. sahra hal mar ii soo jeeso. waxaan ku leenahay mabruuq. waxaan ku leeyahay haddaan bogsadoon karaysto barwaaqaba hayga raacdo balaayo hayga raacdo hadhiin balaayo ay ku raacaynin. waa mahadsantahay. ambaliya ayaan leenahay saare axmed oo u gudubtay iyaduna finalka oo aan dib u maqli doono codkeeda iyo qaybta ugu dambaysa ka mid noqotay gabdhaha u tartamaya. waxaan iyaduna leenahay asli abuukar waa dadaashay waxaana ku rajaynaynaa mustaqbal ifiya iyo barnaamijyo kuwan ka qurux badan iyo qaybaha dambeba inaan isugu nimaan doono. waxaan iminkana u yeerayaa waa nuur cabdulaahi xuseen iyo axmed cabdulle xasan oo ah iyaguna labadii qof ee tartamay. بسم الله نور عبد الله حسين يا أحمد عبد الله حسن oo noqonaya kooxdii afraad ee halka ku tartantay waxay kala heleen codadka Axmed Cabdulla Xasan waxa uu helay dhibco gaadhay 225 dhibcood Nuur Cabdullaahi Xuseen wuxuu helay 320 sidaasi waxa wareegii finalka ugu gudbay Nuur Cabdullaahi Xuseen Axmed Cabdulle waan dhiirigelinaynaa meel wanaagsan buu soo gaadhay 190 ku dhawaad dhalinyaro ah buu ka yimid kaalinta aynu caawa arkayno Axmed aad buu mahadsan yahay sacab iyo moraal waa mahadsan yihiin labadaas tartame oo uu guulaystay Nuur Cabdullaahi Xuseen. dabcan barnaamijkan inta aan wada daawanayno waxaan iska wada daawanaynaa inteeda badan muuqaal iskriinka ah waxaana sahlayay barnaamijkan qaybka iyaguna Muqdisho Cable TV oo iyaguna doorkooda muuqaal baahinimada ka ciyaaraya barnaamijkan halka barnaamijkan idaacadda wadnaha FM ay barnaamijka soo bandhigayso fikirkiisana ka yimid waxaan leeyahay Muqdisho Cable idinkana waa mahadsantihiin sida doorka muuqda aad barnaamijka uga qayb qaadateen. waxaan u gudbaynaa qaybihii gabagabada iminkana waxaan u yeerayaa Cabdiwali Ibrahim Maxamed iyo Muxidiin Maxamed Tooxow. sidaan idiin sheegay mar walba ay guddiga inay xilligan wax kala doortaan aad bay u adag tahay balse iyaguna waxaan ku tixgelinaynaa waayo aragnimadooda iyo khibradda ay u leeyihiin tartanka barnaamijka intuu soo socday guddiga ayaa mar kale idinkaga dhex baxaya. waa kooxdii shanaad labadanina marka Muxidiin Maxamed Tooxow wuxuu haystaa 205 dhibcood 205 dhibcood Cabdiwali Maxamed Ibrahim wuxuu haystaa 380 dhibcood wareega finalka waxa uu gudbay marka Cabdiwali Maxamed Ibrahim oo 380 dhibcood ku gudbay. waa mahadsan yahay waana hambalyan leenahay Cabdiwali Ibrahim tooxowna waxaan leenahay dadaal wacan waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal ifiya dhamaantiin intii aanan u gudbin finalka macnaheedu maahan kamana dhigna inaydan ku guuleysan ama inaydan hibadii lahayn hibadii waad leedihiin 190 ilaa 200 dhalinyaro tartankooda ayaad ka soo gaarteen meeshan taasina waxay cadeyn muuqato u tahay hibada aad leedihiin waxaan rajaynaynaa inaydan halkaas ku ekaynin hibadu Ilaahay idin siyaad bulshadiina siyaabo kala duwan la sii wadaagtaan. waa qaybtii ugu dambeysay waa kooxdii lixaad waa labadii gabdhood oo ugu dambeeyay ee aad heesahooda maqasheen waa Nasteexo Dayax Cabdi iyo Fardowsa Maxamed Xasan. aan ogaano iyagana qofka ku guuleystay uu gudbi doona kuna biiri doona shanta ruux ee finalka uu gudubtay qofka lixayn doona ila soo dhaweeya Nasteexo iyo Fardowsaba.
بسم الله الرحمن الرحيم واتهاي هجاكسن وهورارسن وكي وكوحدي لحد ويان سوق دبتان وقدام بيسي فردوسة محمد حسن وكنت ترتميسي هستي خطرات ظاهر dhibco heeda markii la isku daray waxay heshay fardowso 230 dhibcood ayay heshay fardowsa nasteexo dayax cabdi markii ay wadnahayga inankii heesta Faatuma Duur bay ahayd waxay heshay 390 aad baa u mahadsantihiin sidaa ayuu ku dhan yahay go-aankii guddigu waananu idin salaamaynaa dhammaan daawadayaasha fadhiya iyo kuwa caalamka ka daawanayaba haddaanu guddigii nahay semi finalkan caawa waxaanu idin leenahay halkaa ayuu ku egyahay 6 ayaa soo baxay iyaguna markooda ayaa la baahin doonaa oo hawshooda la qaban doonaa hadduu eebaydno tartankan ka xiisa badan ama habeenkan ka sii qaaya badan ka sii qurux badan ayay 6daasi isugu iman doonaan hadduu eebaydno waayahay hadda waxa soo baxay 6 waxa haray 6 kale sama finalkii ayaan marinay waxa haray finalkii intii noo soo bixi doonta 6da ka soo bixi doonta oo 6daas waxaan ka rabnaa inay 3 soo baxdo ayaa loo baahan yahay كواد إلى بعد استحادة مركا أد بهو ما سنتين وما سنتين قد جايدين كنا وقت جودي جاد جلسين سعيدين شجبا لحظة صباح لي وحى نقدان عوا نصيبنا ويا شيء إنه يوجد بعن قيبتك ما دمبيست أما فاينال كا محمد عبد القادر محمد نوارو يري يقفل بمركا مجلس ويرين ويستيج كيلو صفولا يا عدسنا يا عبد القادر محي الدين كل مية نور عبد الله حسين عبد الولي إبراهيم محمد نستيح ضيح عبدي يسار أحمد جمعالة لحظة ذكر مقتبة ويكلمني لبدي هبلود وعن ولي سيج صفولين وحي نقدين لحظة قفود وجود بتاعي قيبتها كما دمبيستا أما فاينال كا برامج كان نسيدو ويدي شيء هذا بجودي داود وكمذا إن أي سدح قفود كوبادي لبادي سدحات كل جلي دونان saddexda kalena iyaguna nasiibkoodu uu soo dhaafay 6dan caawa ka hartay balse uu san gaarin saddexdaas kale iyaguna waxaan ogaan doonaa marka finalka la qabto finalka oo noqon doona barnaamijka weyn ya ma garsooro wey adaa 12 heesaa ku kala saaray xagga musiga daawud CD calwinkii aadna waxaan ku leenahay aad iyo aad ay u mahadsan tahay 6 qofood waxaan wada sugi doonaa insha Allah xilliga iyo goobta lagu dhawaaqi doono finalka la qaban doono taasna insha Allah xilligeeda ayaa la wadaagi doonaa waxaan rajaynaynaa barnaamijka weyn oo maxay yeelay caawa sama final koor barnaamijyadii hore sidoo caawa kan weyn oo maysan weynayn barnaamijku ka dambeeyay uu sii weynaanayaa maalinta ka dambayso way sii qurux badnaanaysaa aad iyo aad ayeen u mahadsan yihiin guulaystayaasha waxaan leenahay waa inoo finalka ay 3 qof oo la sii sugi doono waana mahadsantihiin waxaan leenahay nasiib wacan hambalyo waxaan kaloo u mahad celinayaa agleelo pixels oo iyaguna noo suurta geliyay screenkan quruxda badan ee aad caawa iska wada arkayno iyagana waxaan leenahay waxa dalka ay ku soo kordhiyeen lagana maarmay in la soo daabaco boorar waaweyn oo derbiga musbaar lagu la garaaco balse si technology-ga caalamka ula socota ay iyaguna caalamka noola jaan qaadeen waana mahadsan yihiin wixii inta ka dambeeyna Balanbaalis studio kala socda Muqdisho Cable TV iyaguna waa mahadsan yihiin guddigii iyo waxa sawir wada gali doona idinkuna aad iyo aad ayuu mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waqtiga xilli dambe ah inoo suurta gashay inaad nagala soo qayb gashaan aad iyo aad ayuu mahadsantihiin walaalaha tartamaya iyagana aad iyo aad ugu mahad celinayaa
waxaan mahad ballaaran u celinayaa barnaamijkan qabaqaabadiisana lahaa wadnaha FM 96.2 waxaana barnaamijka idin xiriirinaya anigoo ah cabdifataax faysal waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo kulan dambe oo xiiso leh iyo finalka ayaan noo ballanay insha allah